الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وإن السلام مدى نداوانا يسميلا جوكتان با أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم ما أنت وحمرتي من بروفيسور واللي يراد حسين إبراهيم حمد حسين و أصل من سومالي جيبوتي سومالي عنفري جيبوتي Absolutely. وبروفيسور كدغ جامعة باريس wuxuu macallin ku yahay maadada philosophy wuxuu bartay bachelor of philosophy wuxuu haystaa 2 master oo ah business law iyo pharmaceutical iyo medicine PhD dana wuxuu ku sameeyay ama doctorada philosophy Hussein soo dhawow waa soo dhawahay assalaamu calaykum sheekh cabdi xirsi maanta wuxuu ka hadlayaa professorku dhinacna shaqadiisa intaan sheegnay weeye dhinaca kalena waa activist iyo qareen u dooda xuquuqda bini aadamka iyo arrimaha bulshada maanta wuxuu rabaa inuu ishaaro 2 dhinac Djibouti Ismaaciil Umar Geelle dhibka uu ku hayo dadka shacabka ah oo kala duwan oo noocyo kala duwana dhinaca kalena Ismaaciil Umar Geelle dhibaatada uu ku hayo dalka Soomaaliya Soomaaliyada kale labada qaybood baan marka insha Allah barnaamijka ku qaada dhigi doonaa Hussein baa ku soo dhaweynayaa programka qaybta ugu horeysa Hussein bal dadka isbar horta marka koowaad kadibna programkaagi gudagal oo maxaa ka socda Djibouti Ismaaciil iyo dadka shacabka ah maxaa u dhaxeeya waad mahadsantahay waan ku soo dhawahay walaalkay sheekh cabdi xirsi magacaygu waa Xuseen Ibraahim Xumed waxaan ahay nin maxaa la yiraahdaa heer Djibouti waxaan ahay nin Faransiisa waxaan ahay nin yani ka dhashay Soomaali iyo Afar amba Ciise iyo Afar haddaad yani doonisiin marka waxaan ahay nin u dagaaltama xaqulisaaka lawna waxaan ahay nin yani wadankayga u halgama iskoolaydii baan u soo dhigtay wadankayga xilliga ku noqday macallinka aan noqday waxaan ahay ninkii la dhibaateeyay sidaad u taqaaniin sida heer Djibouti u yaqaaniin inanta madaxweynaha nood yar imtixaan yar 4 meesha 20 meesha laga doonay waxaa siiyay 4 habeen madow baa la yimiday gaarigaygii baa la gubay dhibaato idil baa la ii geystay shacabweynaha Djibouti oo idil baa u markhaatiya waddankaygii baan u daayay xaggan baan nimiday waraaqadii baa toos la ii siiyey macallin baan noqday laakiin maan iloobin Ismaaciil Umar dhibaatadu waddankayga u geystay dhibaatadu heer Djibouti u geystay dhibaatada waxa ugu horeysa Afarta uu laayo inkastoon Afarahay Afarnimo maaha waxa ay keenaysa laakiin waa xaqulisaanimada magaalada Kaarteega la yiraahdo Arxiba caasimadda Djibouti ku yaala wuxuu u diray army buu u diray police buu u diray jadaran buu u diray dad idil baa la laayay 1991kii isheeda yani ku arkay 59 qof oo la toogtay oo dumar leh awlaad leh duqo leh naxdin baa qaaday lawna waxaan ahaa qof yar taa waxa yani ka horeysay 3 bilood oo yani ka hor anigoo Arxiba joogay dad badan oo Soomaaliya Afarta ku soo caymaday dadka waxay ahayd qolada la yiraahdo Gadabuursi Afarta wala khabaysay lawna qarax yar baa dhacay Djibouti sanadku xilligay ahayd 27 September 1990 Gadabuursi baa la soo wala qabtay waa la wala toogtay in baa jeelka Jadarka lagu xiray
naqas bay waayeen way wala dhidhinteen dhibaato joogsatay maaha way sii socotay xitaa gaalkii idlaayo waddankeena nacaawinayay ayuu Ismaaciil Cumar toogtay nin juju toogtay aan la yiraahdo Bernard Borel gaaso kibrid ba la qabadsiiyay taana imika sida u socoto ilaa ragii abtiyaashay buu soo galay meel yaroo mawlid yar lagu sameeyay buldhaco rag ciisu toogtay marka waxa soo idil dacwada ugu horeysa waxa sameeyay 22 November 2013 ba sameeyay waxaan u dubay maxkamadda Lahee Faransiiskana joogo ayuu dhibaato ii geystay aqalkayga lagu toogan gaaray oo booliis idil ba ilaalinaya aqalkayga sheekada ayaan iska dhamaanin rag ciisu laayay buldhaco handana maxkamaddii baan u gudbiyay dacwad labaad taana waxa sii dheer nin generalo abtigay ahaayo la yiraahdo Yaasin Yaabe oo wax kasta u qabtay ayuu toogtay marka Ismaaciil Cumar taas waa ta ugu horeyso shicibweynaha Djibouti daduna saameyn iskama jirto dadkii buu tooganayaa dadkii buu ka dhigay digita faami kasta geeriyeysan qolo kasta geeriyeysan qofu u fiican yahay iskama jirto inkastoo u siixu yahay gadabursiga iyo cafarta gadabursigu waa ragga abtiyaashiya weyn anu maanta naas aan nuugay kuma soo noqdo laakiin isagu abtiyaashiyo idilbo wala baabi'iyay doctors waa qaybta ugu horeyso heer Djibouti wuxuu u daayay iskama jirto xitaa carabtiina ninka juujka sida xilligu u toogtay inaan carabo heer Djibouti madaxtooyada xakumay askarta madaxtooyada xakumay oo la yiraahdo Maxamed Saalax al-Xumikani maanta ku ah qaxooti Belgium familigiisii oo idilbu soo wala qabtay aqaladoodii baa la boobay kuwiyo qaawan iyo manta lagu tuuray dhibaato naga joogsatay maaha ilaa maanta imika xilligana kula hadlayo Cabdurrahman Barkhad Good aqalkiisii baa laga saarayaa Sheekh Cabdurrahman Barkhad Good aqalkiisii baa laga saarayaa waa baadil weyn aniga idil dacwadda xilligan iskaga qaadan lahaye aqalkii kaliya haato Djibouti iskaga haystay buu qaatay xeer alla xeeru yani ku qaadanayo iskama jirto sheekhayaashu waxay ahaayeen saddex Giremeydal Sheekh Cabdurrahman Bashir Sheekh Cabdurrahman Good labada ugu horeysay waa kuwii dabaxsaday oo heer buu u gaaray inuu Sheekh Cabdurrahman Bashir baasaboorka u diido maantana sheekh kaliya haato ku haray Djibouti aqalkiisii baa laga saarayaa Khadar Ibrahim baasaboorkii baa loo diiday Maxamed Rayaale waddanka laga saaray low yacda lagu tuuray adu aan ku soo hadalka hadda ku soo duuduubo Ismaaciil Cumar shicibweynaha Djibouti qofu dhibaato maanta u geysan yani iskama jirto xitaa nin isaaqoo la yiraahdo Gelle Haraab alaabtiisii oo idil baa la wala boobay baayac mushtargiisii oo idil baa la wala boobay Soomaaliya lagu tuuray dadkoo idil baa wala geeriyeysan dadkoo idil baa iska wala dhibaataysan dadkoo idil baa wala karhay dhibaato idil buu noo keenay dadkii buu isku wala diray dadkii baa ka wala taagan khatiyaan taas waa ta ugu horeyso nin shicibweynaha Djibouti u fiican maaha ta labaad dawladda Djibouti nin u fiican maaha maanta dawladda Djibouti waxaan iska dhisanahay malaha 43 sanadood 43 ka sanadood dhulku waa bala biyo waa bala kooraan waa bala iskool waa bala caafimaad nafaqo ma jirto dadkii diployaasha waaweyn masterada iyo PhD soo qaatay aqalada jeefaan waxba ma haystaan cabsi ayaa lagu wala nool yahay dadkii kaadidoodu kalax yani ku shubay dadkii baa iska wala dhibaataysan dadkii baa wala cabsoonaya dadkii baa la afduubaya waxa maqlanaa ina la waayayo hablo waddankii buu noo keenay dad ajaaniba annagu shalay Soomaali xilligay burburtay waxaan jeclayn wax alla wixii Soomaaliya engineer ahaa doctor ahaa professor ahaa inuu waddankeena noo yimaado nooga shaqeeyo
waxaasoo idil iskama jirto waddankeeni wuxuu ka iibiyey Nigerian iyo African iyo Ivory Coast iyo wax kaste waddankeena wuxuu yahay lawna intaayo saldhig baa ku yaala malaha 10 saldhig handaan yani ka badnayn ayaa ku yaala saldhig yani kaste wuxuu bixiyaa 30 milyan dollar buu bixiyaa lacagta meel alla meel ay marto wax yaqaana yani iskama jirto bilbila dadku deri wax ka imisa saldhig baa ku yaala tiri wallahi waxa ku yaala 10 handaan يعني كبدني waxa ku yaala saldhiga Faransiiska waxa ku yaala saldhiga Mareykanka waxa ku yaala saldhiga Shiinaha waxa ku yaala saldhiga Jarmanka waxa ku yaala saldhiga Holland saldhigyo badan baa yaala xitaa Japanese xitaa Japono askar haysan ayaa waddankeena ku haysata askar walba xeerku uu ka magnuucay xitaa Japanese baa keenay askar marka waxa cajiiba lacagta meel alla meel ay marto lama yaqaano arabti Dubai Port waddankeena noo maamuleysay wuu farxiyay nin inaadeerkiiyo oo wax digan ayuu yani ku bedilay waddankii iskama socdo waddanka waxa maamulaya waa inantiisa waa adeerkii waa inaadeerkii waa walaalihii weyn reer Djibouti waxa la wixii wax soo dhigtay waa kuwan iska wala baxsanaya xitaa maanta askartii buu gaaray duuliyaha Fuad Yusuf Ali wuxuu ku dhaxray toilet ninka ugu dambeeya hor Africa toilet aan lagu xiro oo na ku dhintay waxay ahayd Haile Selassie wax ifka aan la arkay ma waa wax yani ka baxsan Soomaalinimada wax ka baxsan muslimnimada wax ka baxsan xaquulinsaanka بايلوتكي إمك حل جانا نسكلك هذا يو واتي كان سعيد كوجوين نين إدلو أنت يو تعلينا هايستا ودك ماتا دوليو ما هايستو نيكا كليه هاتو هايستي نيكا تولد بالو حري دمبي ألا دمبي أوجيستي إسكوجرتو وكبح صدي يتو بيوتي أبيا نجو خدمي أبيا سوء الشيء مالتي دبعتها دعدانوها قليسها كو يدل بان وشاقي جمعية قرمها كده حيث وراقدان أقري سويسرلاند مالكستي صقبر بيسو قرينو وحيد هذين بروفيسور حسين نيكا ماشو جوغ هدا تقانيد أنكا كوبت باديننا مع الأسف فاميلي جيسي با كم مقلي إن نيكي لأفدوبي أو جيبوتي لجي تانو وعيب هاي ستا أبي أحمد يساقو لغاية قانوماتا أدوك طلبات وإن يرو يساقونا صدح لأ استاجر لو ديري مينيسوتا مريكانكا وبحصدي يسونا عمر علي حسن بالي هذا كصدحات واكو يرو عفريا قبس بالي هذا وسك حريه اسكرتي بو ولا حري امك اسكرتني مورالكا كولا دنتي ودنكي مشاهره مجرتو عافيماد ما فيش كوران مجرو بيو مجرو دباتدا بو ودنكينا يعني كوهيا وح الله وحي مالية العقد الصاغ شاء ولا قاضية وح مقلي الله نحرسته جنرال كدينتي أبتجيها ياسية وحو يجي يحل جوحنا أبتبوري نكن برجع معلم بانها وحو المشاهرة ما تقاتبوري ماي بانكيري المسبلاد أفر بلاد وحو يجي نكن وح الله وحي مالية الصاغ شاء أقل كيسو يعني سكدجا قريف معلمات دو حلقة قريف وحيسو شنطة دربو وديبايو وحو اسكير هذا بالي وجية دولة دي بكون ممنولة يا سيدي اهد أقل كيسة لعكتا انت كالاتنا واكاد وحو اسكغاتوري سويسرلاند ودن كان جوجو مريكا مالكستي مركا annagu waxaan nahay wadan maaliyad iska badan haysta waxaan nahay wadan riisha waxaan nahay wadan wax kasta haysta laakiin silcaabo nagu haya heer Djibouti dhibaatadaabo yani ku haya lagamana hadli karo inta qof uu diiday waraaqadaha dad badan oo heer Djibouti ayuu ka wala qaaday waraaqadoogii dad shisheeye ah oo Afrikaana ayuu siinaya Rwanda noqota Ivory Coast noqota wax kasta marka anaga dhibaatadan uu ilaahay na dul keenay ayaa maanta doonana inuu naga dul qaado Allah inaka dul qaado waxaan
waxaad marka dhanka dadkii shacabka dhibaato badan bay sheeganayaan kooraan horta waa korontada soo maaha lightka ha absolutely marka dadkii waxaa ka muuqataa oon halkan aan dhowr jeer oo hore kaga hadlay aad iyo aad culimo tiro badan oo hadda culimada aad sheegtay ay ka mid yihiin sheekh giire maydal iyo sheekh cabdiraxmaan bashiir marar badan bay ka hadleen reer jabuuti dhibka haysta oo ismaaciil uu ku hayo waxay sheegeen inay dhib badani ka jirto oo fakri badani ka jiro dadku aad u gaajaysan yahay dadkuna aad buu u yar yahay waa la biili karaaba dadka lacagtaa sheegaysid biilsaldegyaashu siiyaan waxaa looga samayn karaa mushahar marka maxaa kalifaya why is he doing this wallahi waxa kalifaya waa dictatornimada weeyin waxa kalifaya qof wax dhigtay maaha waxa kalifaya qof heer Djibouti maaha waxa kalifaya wuxuu yahay qof nooga yimiday dirdaba waa qof nooga yimiday Ethiopia waa qof dayari yani ku soo koray laakiin waa qof ila ka cabsi le maaha qof muslimna maaha qof naxdin le maaha Soomaalidu waxay tiraahdaa qofku amba waa inuu cabsoodaa amba waa inuu xishoodaa ninkan xishoodna male cabsina male ila ka cabsi male ila ka cabsi haduu leeyahay saaxiibkiisii ugu weynaa yaasi yaabe muu toogteen naaskii uu nuugayna muu toogteen lawna gada bursi idil buu haaqay afarta idiloo wadanka 90% iska haysatana muu baabi'iyeen ragga sodagiisa ah isaaqa geelle haram maaliyadiisa intuu qaato intuu boobo kamuu tureen لو يعدى بروفيسوركي محمد ريالي مو توكتين دوليها فؤاد ما تدوليها كليها متعلقة انت هلا حتى ولكن مسكيك عمر يوسف علي كان دجوغ حلقو دوني دايورد انو قاتسو ولكن اسو اركو دايورد دي بالغا مقنوعي هير كابا لو غاري دايورد دي بالغيري دايورد دا جيبوتي كوما سو دادعي كرتو نينكا هداد والدين باليري dadka kaleeto iyo ikuna abtiyaashayo maxaa la yiraahdaa MGO-ga lagu sheego amba MRD-ga lagu sheego bartiyaashoodii buu baabi'iyey digitu yani ka wala dhigay ciisiyo idin buu laayay marka waxa la wuxuu yahay lama yaqaano lawna heer Djibouti waa dad masaakiina heer Djibouti waa dad is wala jecel heer Djibouti waa dad iska jecel Soomaalida heer Djibouti iskaba yaqaanin qabiilmo iyo booqan maanta dhibaatada buu nagu wala hayaa 3 sanadood waa wala baxsanay wadanadan iyo jaamacadahooga ayaa maanta faa'iideynana aan waxaan jeclaan lahaa inaan maanta Djibouti joogo wadankaygaan u faa'iideeyo lawna hadda caynkaad u sheegaysay law yarna waanahay kaninada warshadaha kaninada waa ka soo shaqeeyay maanta Djibouti حبت كنينة إسكما هايستو حبت فارماسية إسكما هايستو حبت ورشدة إسكما هايستو أي داد كيبو إسكا ولا قرية أسكر وحي سيبا نقضي أسكر مو يحوق فيولونس أبيوز وحكا سوا أبيوز إنانتي سا وحينا سا وح الله وحي دونسو إسلانتي سا وح الله وحي دونسو وحينسا صدقيسا افريكوستيغا ايا ماليدي ودنكا سو ولا لقيوا دبتا اون انكو اون هندو نوغو جوكسنيو ها ونا دافيبك سوماليو qaybta labaad maxaa kala socotaa xiriirkiisa isagii Soomaali weyn u dhaxeeya wallahi waa xiriir xun عينكاد واركتي أم عينك هير جيبوتي ولا أركان أنك ورر بدن بعد نسوي الجاري حاجة الدولة ده فرنسيس كان إسكال جوجو إن بدن بيعيش شجعان إنه يهاي نكا كجيرة دبت الصوماليا مالك كسته الشباب لعكت إسقى سياليري هوبكا إسقى يعني كوكو سبالي ماشى صوماليا ديسكور كيسو مقومانو دينا وحو ليه وح صوماليدان اسكا ديسايايون اما كوغان يعني اسكا دودونايا
laakiin sida adeerkii shalay adeerkii xasan guleed Soomaaliya xilligay burburtay waa ninka yiri war libaaxi maanta heedhe ya wuu kufee inuu kugu soo kaco maaha buuri lawna Soomaaliya hadday kugu soo kacdo buuri powerkaaga ka baaba'aya buuri marka ilaa Soomaaliya intay burburtay ilaa joogadeena dhibaatada buu iskaga jiraa si ay Soomaaliya u soo kicin shalay ma ahina daraad nin Faransiisa ii soo diray waraqad cadeynaysa inuu madaxweynaha maanta Mareykanka haysta Joe Biden u diray waraqad Ismaaciil Cumar Geele salaasadii 16 February 2021 waraqada uu ka leeyahay joog buu ka yiri waxaad sameynaysid wax fiican maaha haddeed buuri waa lagu arkay wax ku khaarijinaya maaha waraqada waxa ku tiilay afarlaha saldhiga Mareykanka haysta Djibouti ayaa u geeyay xaafadiisu ugu geeyay wuu argagaxay baa leeyay wuu kala hadlay baa leeyay wadnaha ku joogsan gaari baa leeyay Mareykankii baa yiri waxa tahay baa lagu arkay launa waxa la arkay Mareykanka askarta Mareykanka waxay qabatay 10 nin oo Yamaniya markab hub sidaa u buuxo hubka waxa laga leehayay wuxuu ka tirsanaa 300 Kalashnikov iyo hubka la yiraahdo M6 M16 iyo 8 saxaaradood babkana la tuuro ragii baa la qabtay waxa la yiri waxan ayaa ini dhiibay waxay yiraahdeen waxa noo dhiibay ninka afarlaha ciidanka badda xakuma oo la yiraahdo Wacays Cumar Boqorre nin mamasana nin Ismaaciil Cumar inaadirkiya Mareykanku waxay yiraahdeen ragii la qabtay ayuu haddana doonayay inaan loo soo sii daayo sheekadii baa ku sii cadaatay lawna safiirka Mareykanku u yeeray wuxuu yiri ragga la qabtay khalad baa lagu qabtay soo sii daaya donc waraqad baa loo qoray waxa la yiri doctoro mar dambe taadaad ku noqotid baa la yiri meesha idil ma joogisid baa la yiri walaaliheen Soomaaliya anaku waan jecel lahay Allahu naxariistay jaal siyaad barre wax alla wuxuu waxeeyay lama iloobayo maanta shacibweynaha Djibouti qoladay dooni ha noqotee shacibweynaha Soomaaliya waxaan nahay dad iska taageersan farmaajona dhibaatada xilligu arkay uu ka baxsaday wuxuu maxaa la yiraahdaa u tagay Ethiopia iyo Eritrea madaxweynaha Eritrea sidaa baa la isku haystaa oo isaga Eritrea xilligees qabatay askarteeni in badan baa la qabtay wali Eritrea gaaba haysta muuna doonin familigiina umuu sheegin meel alla meelay joogaan isagii Eritrea dagaala isagii Ethiopia dagaala maanta waa isagii Soomaaliya xitaa heer buu gaaray Soomaali nacab heer buu gaaray inuu maxaa leeyahay Kenya uga eexdo uga sheego been taa aad baan uga wala xumaanay shalay maahina daraadna warbaa way soo gaaro waxa la yiri rag buu meesha u diray baa la yiri si loo kharijiyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo markii anigu waxa sameeyay live waa khashifnay waan ka hadalnay waxaan nidhanaku heer Djibouti hadaan nahay intaan nahay oo idil waxaan taageersanahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo lawna waa qof yar waa nin jaamiciya waa nin wax dhigtay waa nin doonaya inuu wadankiisa soo toosiyo waa nin meel dheer yani ka arkaya Ismaaciil Cumarna wuxuu yahay nin wax dhigtay maaha waa nin maskaxdiisa gaaban tahay xilligu xitaa ku hadla af Soomaaligiisa wax fahma iskama jirto wuxuu yahay nin wadankiisa iska burburinaya wuxuu yahay nin burburinaya Soomaalida marka nin yani Horn Africa u fiican maaha annaku maanta waxaan leeyahay heer Djibouti hadaan nahay dhibaatada isaga baa ku wada Soomaaliya heer Djibouti oo idil baa Soomaaliya taageersan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ilaahay waxaan leeyahay nolol dheer ha siiyo waxaan leeyahay meesha ku soo noqdo waxaan leeyahay shacibweynaha Djibouti agtiisay joogan waa inuu ogaadaa inaan anagu taageerano waxaan ku duceysanay inuu ilaahay Soomaaliya noo soo kiciyo inuu ilaahay nooga dhigo Soomaali weyntii la yaqiinay inuu labada dawladood
Djibouti iyo Soomaaliya walaalihii ay ahaayeen ay noqdaan lawna waxaan nahay dad mida waa gartay Xuseen waxay iga warantaa dacwadda aad ku qaaday ama ku soo oogtay Ismaaciil oo Heeg taala xagee bay maraysaa dacwadda Heeg iska taala dacwad kasto la dhigo waqtiyaal bay yani iska qaadataa dacwadda marka ugu horeysa saacadan dhigay investigation ba la galay waa la hadlaa waxa la yiri ninkan kun shay buu ku dhex jiraa ba la yiri dacwadda aad iska dhigtay un maaha gaalkii uu dilay Jules Borel dacwaddiisii baa u taala meel dad badan uu laayay Gadabuursi Afar ayaan u dacwadooday anigu waxa la yiri investigation badan baa lagu jiraa laakiin waraaqad baa la isiiyay cadeynaysa inay dacwadda ahayn dacwad baaba'asa oo topic ugu horeysa la qoray waxa la yiri wax alla waxaad noo sheegaysid buugga ugu weyn lahe ayaa loogu qoray inuu ninka Ismaaciil Cumar dambigaas oo idil geystay dawladda Djibouti wax beeneeyay ma jirto Ismaaciil ka idil avokaa intuu qabsaday muu iman maxkamadda hortiisa muu oran ninka wuxuu sheegayo waa been marka maxkamaddii wixii bay wala saxeexday bacdaama ayna dee jirin wax iso ashkatiya wixii baa cad marka waa dacwad iska socota dacwad joogsanaysa maaha waa wax u yaala meel biri xilligu yani ka dhaadhaco powerka amba biri xilliga taliska Ismaaciil Cumar uu isbedelo dadka dhibaatada iska wala geystay maxkamadda ba la soo taagi dadkana waxa ugu horeeya Ismaaciil Cumar marka waa dacwad meel weyn iska taala waa dacwadu yani ka seexanayn wuuna yaqaana dhibaatadu geystay dacwaddan imika markii ugu dambeysay waxa ku jiray dadkii ragga ciisaadu ku laayay buldhaco Faransiiskii ba lahe ba itiri dacwadda iyo dacwaddii horeeta maan isku daraa baa la yiri dhawaan haa baan ka yiri dacwaddaana dee waa wax meel u yaala weey ما شاء الله بروفيسور حسين الله كبركيو dadka reer Djibouti waxa u rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala horumar inuu siiyo wararka aad sheegtay anagu wax badan kalama socono laakiin waxaan ognahay si guud inuu jiro caburiskana anigu ma jecli dadka in la caburiyo dadku waa inay xorriyad haystaan oo hadli karaan marka dadka looma ogola inay hadlaan qofkii maamulka ka taga ama ka baxsada waa la xirayaa qofkii opposition noqda oo mucaaradkeena waa la xirayaa qadiyadda hadda sheekh Cabdiraxmaan Good waa qadiyad weyn Ismaaciil inuu arrintaa ku degdega ma aha wadaadadii iyo culimadii waxaan tagay magaalo Ottawa la yiraahdo ku taala dalka Canada oo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir uu degan yahay waxaan kula kulmay dad ilaa 150 qof ah oo waxa jooga wada professionals oo aqoon-yahankii dalka ah oo dad madaxa iyo dad maaragtay technocratski dadkii ka shaqeyn jiray technology-ga culumtoo dhan ragga injineerada ah kulli meesha joogaan marka dadkii aqoonta lahaa dalka hadday ka baxsadaan oo ka cararaan dadkii aqoonta lahaa haddaanay dalkii u soo noqonayn ay ka baqayaan dalku waa baaba'aya hoos buu u dhacayaa qiimaha iyo sharafta dalkuna hoos buu aadaya marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dalkii Djibouti badbaadiyo iyo Soomaaliya oo dhan aad iyo aad baan maaragtay ku soo dhaweynaynaa Xuseen waa mahadsan tahay barnaamijkiina waan soo gabagabeynaynaa marka kelmadaada khatimka ah maxaad oranaysaa ummadda Soomaaliyeed ummadda heer Djibouti ummadda qoladay dooni ha noqotay waxaan leeyahay maanta inaan Ismaaciil Cumar Geelle laga cabsado maaha Ismaaciil Cumar Geelle power ma haysto ninka power haysta shicib weynaha power weyn haysta ninka waa nin noo xun waa nin heer Djibouti u xun waa nin Soomaaliya u xun waa nin stability-ga Horn Africa u xun waxaan leeyahay walaalahayay waa inaad iska wala kacdiin waa inaad ka wala farxisiin powerka waa inaad u kacdiin Fuad
waa inaad u kacdiin dadkii uu ku dilay buldhaco waa inaad u kacdiin gadabursiguu laayay abtiyaashii waa inaad u kacdiin cafartuu baabi'iyey waa inaad u kacdiin yaasiin yaabe oo saaxiibkii ahaa u toogtay waa inaad u kacdiin duuliyaha fuwaad tawladka lagu hayo maanta waa inaad u kacdiin dad alla wax alla wixii ka wala baxsaday ciyaalka MGO-ga Mareykanka ka baxsaday barafka dhex maray si ay Canada isku dhiibaan anu xilligaan arkay filinka GRC-ga Gendarmerie Royale du Canada askartii qof yaroo leh heer Djibouti baan ahay waa yaabay marka Ismaaciil Cumar waa inaan iska wala firxinaa power ma haysto power iniga haysta marshana dinu nagu soo noqdo maaha walaalahayay iska wala kaca Maxamed Cabdilaahi Farmaajona waa inaan iska wala taageeraa launa Soomaaliya haday noo soo kacdo ninka dictatorku ma joogi doono marka stability-geenu wuxuu ku xidhan yahay stability-ga Soomaaliya walaalahay waxa leeyahay iska wala kaca aan is wala haysano inaad aamustiin maaha soo wala kaca ka wax qoro waxa qoro ka bandiqol qaadanaya ha qaato aan is wala haysano waqtigii baa yimiday wadankeena dimuqraasi ha noo noqdo Soomaaliya waa ka waxay socotaa madaxweynihii afraad madaxweynihii shanaad annakuna waa ka nin kaliya haataan haysta 43 sanadood dhibaato iyo silic iyo cabsi ayuuna nagu hayaa waa inaan de hadeed maxaa la yiraahdaa yani ka weynaanaa inaan anagu cabsoono maaha waa inuu isagu cabsoodaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما تنتين داود يال برنامج حسين ونقدر البضي ساسا كسو قبل إن شاء الله يدين بركيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.